السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatu kasoo dhawaada maalin cusub iyo wanaswada kram maanta waxaan dhammaystireynaa waxyaabaha oo qofka horumarkiisa hor istaaga soo mawduucan soo qaadana maanta waxaa la dhahaa ingiriisanka waxaan ku dhahnaa qofka oo victim mindset qabto victim mindset waxa waaye qofka oo Soomaali hadii loo fadilo literally waxa waaye maskax dhibaataysan so isna maskaxda inay qofka jiran tahay ba qofka waxa waaye maskaxda waxay iska dhaadhicisay qof oo waxa inay tahay qof qalbaan ah qof maskiin ah qof oo yani waxyaabo badan awoodin qof la jecleen inay tahay so it's a victim mindset ay qabtaa so calaamadaha lagu garto qofka haddii inay victim mindset qabto waxaa ka mid ah midda koowaad waxa waaye wax kasta waxay u fiirisaa negative si xumaan ah u fiirisaa so haddaa wacdid aa salaantid waxay u bedelaysaa maxay soo wacday maxay u baahneed dantayga lahayd maxay ahayd camal so ma aha waa laysoo salaamay ama ma aha qofa asxaan iisoo bise ama waxaana igu dhacay qadar allah maa shaa facal it's more of like anaa la igugu talagal anaa lay xumeeye dadka dhan way xun yihiin qof fiican ma laha so taas calaamada koowaad waaye midda labaad waxaa lagu gartaa waxa waaye waxay dhahdaa qof why me wax la dhaho why me waxa waaye wax kasta muxuu ani igugu dhacay why ani saan la ii yeele why ani saan la ii xumeeye why ani waxaan igu toosi waaye why ani waxaana u samee la ahay why maanta dhan why le ay ku jirta so instead of waxaan ka qaban karaa waxaan wuxuu igugu toosi waaye maxaan ka qaban karaa ee fiiri lahayd mar waxay ku dhegaysaa muxuu ani waxaan igugu dhacay so taas why me aan dhahaa mid saddexaad waxaan dhahnaa qofkaasito rumination waxa waaye markii oo wax dhaco ama iyada iyo qofka hadduu wax dhex maro maanta dhan way kusoo celcelinaysaa so rumination waxa waaye markaa fikradii ama wixii scenarioga aad kusoo celcelisid maanta dhan aad isla hadashid almost like conversation inay nafteeda lalahaa haysa inuu qofka hortaagan yahay camal way kusoo celceliya wixii maanta dhan ilaa hor ay wax ka gaarto oo mawduuci ay sii weynayso micno kale u yeesho oo hadhooti mawduuci wuxuu noqohaa like wax weyn midda afraad waxa waaye qofkaasito they don't think highly of themselves so qofka like waxa naftooda ma u fiiriyaan qof oo kalsooni iskuma qabaan basically so kalsoonidooda way yar tahay and midda ugu dambeysa waxa waaye they get very angry so xanaaqooda wuu badan yahay markii oo wax dhacane wax ugu horeeya ay ku boodaan like qofka emotionsaan qabnaa oo kala duduban ma ogtahay dareenkeen wuu kala duduban yahay so dareenkooda sad ma noqonayaan oo angry noqonayaan so anger waxaan dhahnaa anaka secondary emotion waaye hadda ka hor aan sheegay dareen labaad waaye so dareenka angerka intuu imaanin ama xanaaqa uu imaanin dareenaa ka horeeya dareenkaas muxuu ahaa qofkiina ogaata waaye so dadka oo victim mindset qabaan dareenka labaad ay ku boodaan which is anger also like masalan qofaa wax fiican loo soo sheega like saaxiibkaagaa shaqo hele haddii la dhaho xanaaqa waay ani shaqo u heli waay kaasita marka shaqo helo isla markaa shaqo hore ka hela why muxuu igaga fiican yahay muxuu iga duban yahay so dadka uma farxaan qofka markii oo qof ilaahay wax u toosiya ama wax u barakeeya ama ilaahay nimcadiisa oo qof ay hesho way xanaaqayaan way isgalayaan uma farxayaan dadka which is حرام I mean of course دينتنا waxay dhahaysaa حب لأخيك ما تحب لنفسك walaalkaa u jeclaa waxa naftaada ugu jeceshahay and that's cudur waaye ba haddii aa walaalkaaga u quurin qurweyta haddii kugu jirto dan meel ma gaaraysid because waxa waaye dadkii farxadoodaba wax aa quuri laadahay ee goormee aadi farxad gaaraysaa waaye so maxaa laga qaban karaa so si fudud waxaan u sheegaa waxyaabaha laga qaban karo soo qofka haddaa noocaas tahay waxyaabahaas isku aragtid maxaa suubin kartaa midda koowaad waxa waaye waxaa suubsataa wax oo small goals la dhaho si oo naftaada kalsoonideeda usoo ceshatid so wax weyn qasab ma aha inuu ahaado wax yar like maybe maanta haddaad soo kaco waxaan suubin like maybe I don't know something simple like guriga nadiifinaa ama gurigayga nadiifsanaa oo waxaa suubi kartaa maanta qofan waxa aan salaama waxa waaye something simple adoo qof waxba ka rabin oo danka lahayn oo just salaan walaaltinimo si ah so steps yar suubi si waxa kalsoonidaada ee kugu soo noqoto give to others midda kale waxa waaye give to others waxa waaye haddiiba aad tahay nooca oo more waxa حقودك عمل أو قدرتك wax u quurin isbar inaad dadka
wax siisid inaad dadka wax u qabatid inaad dadka asxaan u samaysid because taas waxay dadkana way ka farxinaysaa adina waxaa ogaahaysaa inaa awood leedahay inaad qof kale ka farxisid so qasab maaha maanta inaa angry ahaatid because markaa qofka farxina markaa walaalkeena asxaan yar u sameyno waxaa helaynaa kalsoonideena badanayso waxaan dareemay anagaa farxeyno markaa qofka farxisid oo farxadda qofkaas wejigiisa aad ku aragtid adina waa farxaysaa and you feel good about yourself so try inaad dad wax u qabatid it could be cunug yar ah wax u qabatay it could be community service ah soo bise it could wax yar yani wax weyn ma aha you know like it's just simple things waxaa kaloo soo bisaa wax oo gratitude lista dhaho so gratitude waxa waaye mahad celinaan dhahnaa so dadka badankood waxa waaye busy waxaan ku noqonaa dadka waxay haastaan anaga ma aragna waxa anaka haasano so it's very important inaad fiirisid adi maxaa haasataa you know ilaahi wuu kuu nimceeye it's sometimes nimcada ilaahay ma arkeyni because bani aadanka greedy waaye bani aadanka tamaac waaye so damaceena wuxuuna tusaa dadka waxay haastaan anaga waxaa haasana ma arkeyni so it's really important inaad fiirisid waxa adiga haasatid maalin kasta qor you know 2 shay 3 shay oo ilaahay kugu nimceeye ilaahay ugu mahad celinaysid and then maskaxdaada instead of ruminationka xumaantii ay kusoo celcelin lahayd bar inay kusoo celceliso fiicnaanta waxyaabaha fiican ay dadku suubiyan waxyaabaha fiican oo ilaahay ku siiye si ay maskaxdaada u barato inaa waxyaabaha fiican xasuusnaa kartid oo inaa ka ana like appreciation subisid mahad celin for waxyaabahaaga fiican mid afraad waxa waaye wax oo la dhaho closure for the past so bani aadan aan nahay kulligeena waxaana dhex maraayo xumaanaana dhex marayso fiicnaanaana dhex marayso so sometimes markii xumaan anaga iyo qof ayna dhex marto xumaantaas waa ku dhignaa run ahaantii waa ku dhignaa xataa marka waa u qabanaynaa qofkii so waxaa jira wax oo closure loo dhaho closure-ka different ways aa loo suubi karaa so adi iyo masalan qof walaalkaa hadday tihiin maybe inay noqoto inaa la fariisatid walaalkaa u dhexdid waryahay dheh saas iyo saas marka ay dhahde you know I didn't like it and then closure waay laga wada hadlo mawduucaas la dhameeyo la xiro meel la dhigo laga socdo okay haddii ay tahay qof kaleeto masalan oo aadan awoodin inaa la fadhiisatid ama og tahay like just la fadhiisashaabkeeda inuu anger ka dhiga inuu ku xanaaqaagna soo bixinayo then you might want to inaa la fadhiisatid qof kale oo saaxiibka ah ama walaalka kaleeto ama waa you know ama therapist qof aad kala hadli kartid dhaawaca uu qofkaas ku geeyey iyo waxaa ka qaban kartid so because qofka waxa waaye inaan gaarno forgiveness wax la dhaho forgiveness is really hard runta haddii la sheego ilaahay gafuur raxiim anaga bani aadan aan nahay and a lot of times waxaan dhahaynaa xataa waa forgive gareeheena but it takes a lot of work si qof loo forgive gareeyo and ilaahay dartiis la iskaga dhaafo laakiin haddii aan gaarin qof forgiveness haddaan qofka dadka cafinin ma raaxaysanayni nafteena ma nasanayni ilaa aan qofka ka forgive garayno because dadda waxaa jiraan you know especially qof ilaahay ku xiran haddaad tahay markii qof kala xanaaqsan tihiin ama you know qof col kala tihiin gudahay kaa cunaysaa way ku dhibaysaa so forgiveness inaad gaartid waa inaad qofka cafi kartid waaye oo ilaahay dartiisaan u dhaafa aad dhihi kartid aad ka socon kartid mawduucaas and that's closure aa lahaa and the last thing ugu dambeynta waxa waaye take ownership of your decisions don't say qofaa iga xanaajisay iyo qofaa saaniyeesh qof oo wax ku yeeli karta ma laha qof oo wax ku dareensiin karta ma laha qofka waxa le the person can go as far as you allow them so qofka halihii aad u ogolaatid la isu xadgudbi kartaa so maanta dhan qofaa iga xanaajisay meelaha u fadhinin qof ka xanaaji karta ma laha adiga le qofkii u ogolaatid inay kaa xanaajisa ka xanaaji karto so teach yourself inaa qofkaan intaan oo dhahay xadgudub oo suudbiyo meeshiisan ku celiyo way dhamaatay it doesn't have to wax kasta inaa maanta dhan uga xanaajiye kelmado ay dhahay saan oo iyaala maanta dhan waxaa la wadwadaayo oo dhammaanaynin inaa iska joojisid so self discipline ay taas marka inaa naftaada discipline u suubisid so basically waxaan ka hadalnay waxyaabaha oo horumarkeena hor istaago and haddaa nooca tahay maskaxda oo qofka uu victimka iska dhigayso oo waa dhibanahay maanta dhan maskiina ahay malay jecla malay rabo malay iyada dhahay horumar ma gaaraysid because waxaaba sir kalaaba ku jirtaa inaa ka baxdid ma ahan ay horumar ku gaaraysid waxaana waa ka hadalnay shanta qodob aa samayn kartid si aa uga baxdid circlekaas I hope inuu videogan idin anfacay